Ambassador, welcome to Radio Dalsan in Mogadishu. Thank you for joining us. No, I thank you. Okay, my first question is, tell us about the current diplomatic relation between Somalia and your country. Ambassador, waad ku mahadsan tahay inaad la hadashay Radio Dalsan. Su-aasheeda ugu horeysa waxay tahay waxaad wax nooga sheegtaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo wadankaaga. Really, the Somalia now is a real brother of Turkish people, and the Turkish people also considers Somali people and Somalia. Soomaaliya hadda waa walaalaha dhabta ah ee dadka Turkiga, sidoo kale shacabka Turkiga yana aad bay u tixgeliyaan walaalahooda Soomaalida ee wiilasha gabdhaha bale. Waxaan Soomaaliya la leenahay siyaasad wanaagsan oo dalaalaysa, sidoo kale xiriir dhaqaale oo wanaagsan ayaa sidoo kale aynu la leenahay. Waxaan sidoo kale aan leenahay arrimo suurtagalnimo ah oo aad u weyn kaas oo inaga wada dhaxeeya between us to be utilized for the sake of our peoples. 15 bishan markii inqilaabkii guuldareysay uu ka dhacay dalka Turkiga, Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamadii ugu horeeyay ee cambaareeyay arintaasi. Maxaad ka leedahay? This is very strong evidence of our brotherhood. I think just only a few hours after the coup attempt, tani waxay tahay cadeymo aad u adag oo ay walaalaheena Soomaaliyeed ay noo muujiyeen saacado yar uun kadib markii afgambigii fashilmay uu dhacay 15 bishan July. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku cambaareynayso. xaqiiqdii aad baan ugu bognay arintaasi. Somali federal government issued a statement and condemned the attempt, and we really appreciate this kind of reaction to the coup attempt. xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga aad buu wanaagsan yahay. dhawaan Soomaaliya sidaad ogtahay waxaa ka dhacay doorashooyin dhamaadka sanadkan ama bilowga sanadka cusub ee soo socda. muxuu yahay doorka Turkiga ee sida dhow ay u doonayso inay kula shaqeyso Soomaalida? We believe that after 4 years of period of normalization in Somalia, I think the Somali people now will have an opportunity to show their ideas about the future of Somalia. waxaan aaminsanahay 4 sano kadib in dadka Soomaaliyeed in ay leeyihiin mustaqbal wanaagsan oo fursad leh si ay u soo bandhigaan fakarkooda ku aadan doorashooyinka. waxaan u malaynayaa doorashooyinka soo socda in ay fursad gooni ah u tahay Soomaaliya. waxaan u malaynayaa haddii loo barbardhigo doorashooyinkii 2012 iyo midaan in ay farqi weyn u dhaxeeyaan. marka waa tallaabo. waxaan kaloo kuu sheegayaa in doorashadan ay noqon doonto mid dhagax dhig wanaagsan u noqon doonta doorashada sanadkan 2020. waxaan diyaar u nahay in Soomaaliya aynu ka caawino jihadaasi. And we are ready to support the Somali people and Somali government in that direction. xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga aad buu wanaagsan yahay. Turkiga hadda waxay dhisaysaa ciidanka Soomaaliya ee qaybaha kala duwan ee amniga. arrimahaas maxaad nooga sheegi kartaa? tusaale akademiyada militariga, ciidanka badda iyo ciidanka cirka tababarada uga soconaya magaalada Istanbul. Yeah, I think the security sector is one of the pillars of our engagement in Somalia. qaybta amniga waa tirarka ugu weyn ee Turkiga ay adkeynayso, waana hab socda. waxaan tababaro aan isbuucan ku siinaynaa qaybo kala duwan oo saraakiisha ciidamada Soomaalida. hadda waxaan kal hore tababaro aan Muqdisho hareeraheeda ugu soo gabagabeynay saraakiil iyo ciidamo military oo Soomaaliya kamid ah. waxaanu rajaynaynaa bilaha October ama November in aan bixin doono tababaro ciidamada dawladda Soomaaliya lagu siinayo gudaha Soomaaliya. waxaan u malaynaynaa in dhinaca amniga aysan noqon mid horumarsan. tani waa mid aad u cad. hadda aad baan u doonaynaa in aan u maalgelino, waana sii wadi doonaa adkeynta habka dhinaca ammaanka. Now we invested a lot, and we will continue to deeply engage in the security sector process.